بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay waa xuduudeena la maali wanaagsan marka hore hal gareeyo comment iyo like iyo subscribe inta saar channelkana booqo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaam asxaabay waxaan ku soo qaadanaynaa maanta labada siyaasi ama labada diblomaasi ee ka dowladda Soomaaliya ka wada tirsan. marka qodobka waxaan ku soo qaadanayaa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay dowladda federaalka Soomaaliya inay beegsato xisbiga uu asagu ka tirsan yahay. Wadaag xisbigiisa marka waxa lagu magacaabaa xisbiga wadajir oo u lootamaya doorashada iyo mar walba u heegan inuu maaragtay ka qayb qaato. Wadaag siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama sida dowladda federaalka Soomaaliya ay qabto waxa ay sidoo sheegay asagu uu ka hadlay in mar walba beegsato xisbigiisa iyo axsaabta taageersan ee la mid ah. Wadaag kan waa hadaba madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo ka hadlaya fikirkiisa. madaxweyne Farmaajo sida ogtiin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo waxa weeye wuxuu dhashay sanadkii 1962 waa 57 jir. wuxuu ka qalin jabiyay jaamacadda Buffalo ee ku taala dalka Mareykanka. wadaag wuxuu xilka dowladnimo ee Soomaaliya qabtay sanadkii 2017 bishii 17 wadaag waxaan leeyahay daba daawasho wanaagsan fikirka madaxweyne Farmaajo ee ku aadan xisbiga wadajir iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. siyaasaddu waa xal raadin, siyaasaddu khayaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. meel ay adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto, diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo. waa ceeb weeye. wadaag kana waa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka waramaya hadaba sidoo hadalka u dhigay dowladda dhexe Soomaaliya ee dowladda federaalka ku magaalka Soomaaliya oo ka hadashay arrimo dhowr oo ku saabsan qaabka xisbiga wadajir iyo axsaabtiisa mucaaradka iyo muxaafadku iyo taageerayaashiisa ay u wajaheen oo uu ku dhaleeceeyay cambaarayna maaragtay uu ka soo jeediyay maanta shir jaraa'id uu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. uu uga hadlay dowladda federaalka Soomaaliya inay axsaabtii ama xisbiga ka tirsan yahay wadajir ay u adeegsatay kooxo argagixisa oo wadaadada sida qalafsan wax u fahmaa. haddaba sidoo hadalka u dhigay waxyaabo badan oo taabanaya ka hadlay wuxuu sheegay inuu asagu mabaadi'diisa iyo asxaabtiisa iyo inta taageersan uu ku hogaamin doono si nidaam leh, hase ahaatee inaanu dhag jeel qusin doonin kooxaha argagixisada ah ama calooshadu shaqaystayaasha ku qaraabta diinta iyo siyaasadda qalafsaneed ee aan la fahmayn. wadaag haddaba waa kana daawasho wanaagsan shirkii jaraa'id uu maanta qabtay iyo maaragtay qaabkii uga hadlay iyo fikirkiisa hore wuxuu ahaa. hadda waxaan ku soo qaadanaynaa maanta sidii uu uga hadlay iyo isagu hadalkiisa siduu u dhigay markii uu ka hadlayay arrimaha ku saabsan in loo adeegsaday caloosho shaqaystayaal ee dowladda Soomaaliya soo cabaysay ama ay soo adeegsatay ayna u soo dirtay xisbiga wadajir si ay wax u yeelaan ama ay u weeraraan. wadaag daawasho wanaagsan asxaabay. waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka. de annaga dad badan oo culimada kamida gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wa diin. aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meelay ka yimaadeen aysan jirinay kitaabaha jawaab kala soo baxaan. laakiin waa u jeednaa Jarmalka markii saddexaad ay xukumaysaa ama markii afraad Angela Merkel ma aha kaliya inay Jarmalka xukumayso oo dowlad weyn ah, waa qofka kaliya hadda free wall-ka u taagan la yiraahdo oo Donald Trump iyo nin wadan aan joogi jira hadda xukumo Boris Johnson la yiraahdo saas u kala haysa ee Yurub badbaadinteeda u taagan ee maanta 1 milyan oo Suuriyaan ah in dalka laga aqbalo qaxooti difaacaysa wixii liberal order-ka la dhihi jiray adduunkii horta ahaa qofka hor taagan ee difaacaya ma aha kaliya Jarmal ma aha kaliya Yurub
adduunka cidda markuu Barack Obama dhahay amaanada adduunka waxaan ku ogahay Angela Merkel uu yiri kuma dhihin madaxweyne asaga dhaxlaan ku ogahay marka haweeneydaasna runtii waa tusaale aad u fiican gabdhahanna tusaale u noqon karta gabdhaha muslimka u noqon karta qofka inay waxaan la baasaysanayo leeyahay haday dumar hogaamiyaan waa lagu kala tagay balaaya dhacaysa waxaas ma jiraan anaga quraanka markuu dumarka hadlaayay wuxuu aad u amaanay gabar la yiraahdo Balqiis dhowr jeer aan ka sheekeeyay oo markii ay gudoonkii iyo talada sameeynayay si shuura ah oo dimuqraadiga ah ay ku sameysay waxay tiri yaa ayuhal malaw aftuni fi amri yatin ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun aniga go'aan ma gaaray kiri illa aan talada in weydiiyay idinka qof dimuqraadi ah quraanku waa amaanay sababtoo waxay kaloo tiri judgmentigeeda fiirso u cuslaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين maanta waxaan rabaa halkan inaan shir jaraa'id aan ka jeediyo oo isugu jira laba qodob ka kooban qodobka koowaad oo ah caddayn ama bayaanin qodobka labaadna oo ah ambaareyn haddii aan ku hormaro qodobka koowaad waxaa maalmahan oo dhan baraha bulshada la isla dhex wareegayay oo meel kasta lagu hayay oo falcelis toban iyo mid togan intaba ay iga soo gaareen khudbad aan ka jeediyay hadda ka hor waddanka Jarmalka oo aan uga hadlay kaalinta siyaasadda ay ku leeyihiin dumarka falceliskaas waxaa ka yimid dad badan oo si wanaagsan oo niyasami leh fahamkayga hadalkii jeedinteedii faham qaldan ka qaatay iyo kuwo si siyaasadaysan u isticmaalay labadaas qolo ayaa ka falcelisay waxaan rabaa marka inaan dul istaaga arrintaas ayada ah kow haddii aan ahay cabdiraxmaan cabdishakuur sidoo qofka hogaamiyaha ah sidiisaba waxaa saaran hadal uu jeediyey haddii ay ka timaado dhaliil ama faham darro amase dadku ay qoonsadaan inuu ka bixiyo caddayn waa waajib qof kasta hogaamiyaha saaran sidaas daraaddeed waxaan halkan ka caddaynayaa qoraal aan shalay soo dhigay bartayda facebookana aan ku caddeeyey in axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena maxamed ah sala allahu calayhi wasalam ka soo aroortay ee saxiixa ah inay madaxa ii saaran tahay inaan aaminsanahay inay tahay masdarka labaad ee tashriica shareecada islaamka inay tahay markii laga soo tago qur-aanka inaan ku qanacsanahay inaan aaminsanahay labo inuusan jirin xadiis mucayan ah oo saxiix ah ama xadiiska la isla